السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyadoo ay dhici karta inaad ka dharagsan tahay waxtarka saliid saytuunta ayaa haddana malqaacad saliid saytuuna oo qofku uu cabo subaxda hore intaanu waxba cunin waxay leedahay waxtar kale oo cajiiba sida lagu sheegay daraasado badan oo xilliyo dambe la sameeyey. malqaacad saliid saytuuna oo qofka subaxda hore caba waxay ilaa xad wanaajisaa oo ay ifisaa muuqaalka sare ee jidhka, waxaanay xoojisaa oo ay wanaajisaa shaqada wadnaha iyo habsami u shaqaynta unugyada dhiigga. waxaanay daraasado badan isku raaceen in malqaacad yar oo saliid saytuuna oo subaxda hore la qaataa ay ilaa xad jidhka ka ilaaliso kansarka, waxaanay ka hortagtaa calool istaagga, waxaanay degdeg u kaxaysaa casiraadda caloosha iyo dhammaan cilladaha la xidhiidha dhinaca caloosha, waxaanay dawo ka tahay igfashanka noocyadiisa kala duwan, waxaanay qayb weyn ka qaadataa korriinka timaha, waxaanay nadiifisaa beerka, waxaanay dawo ka tahay xanuunada ku dhaca kaadi haysta, waxaanay ilaa xad hoos u dhigtaa khatarta kolestaroolka halista ah. waxaana baraarujin mudan in saliidda aad isticmaalaysaa ay noqoto saliid saytuunta asalka ah. ugu dambeyntiina daraasadahani waxay ku taliyeen in dadka qaata kiniinka dhiigkarka iyo dadka qaata kiniinka macaanku inta aanay qaabkan u isticmaalin saliidan inay dhakhtarkooda la tashadaan. haddaba malqaacad saliid saytuunta asalka ah oo aad ku dartay wax yar oo ka mid a caleenta geedka saxtarka oo aad daqiijisay kadibna aad cunto 24 saacadoodba hal mar xilliga cashada ama quraacda ayaa lagu sheegay mid waxtarka laga helo aan tiro lagu soo koobi karin. waxaanad cuni kartaa cuntada ka hor ama kadibba, waana malqaacad saliid saytuuna oo aad dusha kaga dartay wax yar oo ka mid a caleenta geedka saxtarka oo aad daqiijisay.